noogu timid waanu ku soo dhaweynaa waxaan ku leenahay degmadii Balagubadle ku soo dhawow degmadii Balagubadle waxay ku haysaa dadkeeda iyo deegaankeeda abaal badan bay ku haysaa midaan iloobi karno maaha mimkuun maaha hore iyo imakaba waan ku haynaa abaalka markaan ku nimaadno ayaanu ka soo codsano horumarka degmada sad nagu dhigan nagu shahay ilaahay ka jisaysi baa kulana maaray adiga iyo Maxamed Faarax baad baan idinku mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee nolol shaqaynaysaan wadada Balagubadle Hargeysa sida quruxda badan ee shaqaynaysaan sida aad dadaalka badan aad u gelinaysaan waxa weeyaan gobolku wuxuu jiray ama hawd ay 12 sanadood ay dalka jirayba way jirtay degmadu oo siyad bar marbu magacaabay marna waxa la magacaabay waqtigii isla lagu jiray la magacaabay imankana waa tano waa degmada waa magacaaban tahay degmada dastuurka xadkeedii la sameeyay inta way jirtay laakiin sida imanka xukuumadan wada jiriyo wax qabad ay u soo jeesatay ay gobolka u soo jeestay abaalkeedii maanta uu helay adiga ka maaray ahaan ama maaray ku xigeen ahaan markii hore dawladii hore wada wada shaqeynay si fiican oo qurux badan ayaan kaaga mahad celinaa sidii hooyadii cusbeyd ee u timid markii aan ku nimid aan kaaga codsanay ad anaga xariga nooga jartay noogu soo dirtay marka maaray waxaan ku leenahay wax ku yaala taariikhduna waa ku xusi doontaa qof walba degmada Balagubadle waa caasimadii koobaad ee Soomaaliland waa halkii dalka laga xoreeyay cid kastaaba intii ay gashatay abaalkeeda waan u haynaa insha Allah xafiiskayga macaalo waan dhigi doonaa sawirkaaga insha Allah bismillaahi kariim